xiisad culus ayaa caawa ka taagan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo bilowday maqribkii ayaa sababay in ciidan xoog leh lagu soo daadiyo magaalada. Dhaqdhaqaaqa ayaa bilowday kadib markii uu General Saadiq John caawa degay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Shirkole. Saadiq John waxa uu degay guryaha Naaji ama dabaqyada Naaji oo aad ugu dhow maxkamaddii hore ee Shirkole. Waxay saraakiishu ku tilmaameen aag istiraatiiji ku ah difaaca. sida ay sheegeen dadka deegaanku ilaa 9 gaadiidka dagaalka ayuu wataa taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir. ciidamada daacadu ah madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ayaa iyagana lagu soo daadiyay xaafadaha Baarwax iyo Balaaksi. saraakiil xalay u tagay waxa uu taliye Saadiq John u sheegay inuusan xijaar xilka ka qaadi karin oo uusan isagu magacaabin, sidoo kalena uusan farmaajo darajada ciidanka ka qaadi karin ilaa maxkamadii ay eedeyn ku soo ogta mooye. waxaa la sheegay inuu wada abaabul ciidan oo aad u xoogan tan iyo 12 Abriil. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa siiyay 6 baabuur oo gaashaaman maalintii uu ku dhawaaqay in aanu baarlamaanku samayn karin muddo kororsi. dadka xaafadda Shirkole ayaa badi ka walaacsan halista ka imaan karta taliye Saadiq John haddii ay dawladdu damacdo inay weerarto. waxaa la sheegay inuu xirtay dhammaan wadooyinka soo gala halka uu degay, sidoo kalena waxaa la sheegay inay jiraan ciidan xoojina oo kaga soo socda dhinaca Shabeellada Hoose. waxaa lagu tilmaamaa sargaal awood badan oo ay taabacsan yihiin inta badan hoggaanka ciidanka degmooyinka gobolka Banaadir. shakiga laga qabo inay taliyaasha Muqdisho weli daacad u yihiin General Saadiq John ayaa sababay in caawa la amray inay soo xaroodaan dhammaan hoggaanka ciidanka degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana ay dawladdu adeegsanaysaa hadda saraakiil dhawaangal ah oo aan shaki badan laga qabin. sargaal ka mid ah nabad sugidda Soomaaliya ayaa u sheegay adduunka TV in weerar lagu qaado Saadiq John inay ka horeyso inay dhankooda hubiyaan inay ciidanku daacad u yihiin, gaar ahaan kuwa la rabo inay howlgallada ka qayb noqdaan. dhanka kale ciidan daacad u ah hogaamiyaha waqti uu ka dhamaaday ee Soomaaliya ayaa la soo dhoobay isgoyska kilomitir 4, waxaana ay diideen inay gaadiidku u gudbaan dhanka garoonka Aadan Cadde oo sidoo kale ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka. musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmahan wada dhaqdhaqaaqyo ciidan iyagoo bilaabay inay qortaan ciidan iyo inay iibsadaan hubka culculus. markii la weydiiyay sababta ay isu hubaynayaan, waxa ay sheegeen in wixii ka dambeeyay 19 Febraayo inay u caddaatay inuusan farmaajo doorasho iyo dawladnimo rabin oo ay ku qasban yihiin inay naftooda ka difaacaan. waxaa la filayaa inay musharaxiintu kala guuraan maalmaha soo socda oo ay degaan jihooyin kala duwan oo caasimadda ah sida ay la muhiima xaqiijiyeen. geediga musharaxiinta ee la filayo ayaa ku soo aadaya xilli uu maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur sheegay inuu soo fuuqsaday boorarkiisii musharaxnimada oo aanay jirin siyaasad iyo doorasho midna ayna isu diyaarinayaan inay iska kiciyaan farmaajo. qorshaha musharaxiinta mucaaradka ku degayaan dhowr jiha oo caasimadda ah, ciidanka ay caawa dawladdu soo bixisay, gulufka uu Saadiq John ku degay Shirkole iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan saraakiil uu hogaaminayay General Koronto oo ka mid ah xubnaha sida weyn farmaajo uga soo horjeeda ayaa muujinaysa in Muqdisho ay foolanaysa dhiilo colaadeed. madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqday inuu hadda u diyaar garoobayo inuu xoog ku qaato xukunka ama uu xoog uga tago kadib markii ay fashilmeen dhammaan wadooyinkii lagu gaari lahaa doorasho loo dhan yahay. muqdisho waxay u muuqataa magaalo aan haysan odayaal dhaqameedyo macno leh, ganacsato fikiraysa iyo aqoon-yahano dhabudirir ah, waxaana maqnaanshaha macnihii saddexdaasi garab ay halis weyn ku tahay xasiloonida amni ee magaalada. baaqa ugu badan waa inay saddexdaasi dhinac ka soo dhex baxaan danaysiga oo ay bannaanka soo istaagaan oo ay magaalada ka badbaadiyaan gacanka hadal si aanay u noqon kuwa ku gubanaya dabka siyaasiyiinta. maxay kula taadiga